الحديث الرابع حديث كأفراد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا وحان نو شيكيي او نو ورمي رسول الله إلهي رسول كيسا نو ورمي صلى الله عليه وسلم والحال بو نبينا نو ورمي الصادق مدكي رون لوغا او يحي المصدوق لو رون شيغي صادق المصدوق ومدكي لو رون شيغي محو نو شيغي إن أحدكم أحدكين يجمع ولا جمع خلقه أبور كيسا لجمع في بطن أمه هو يديس علوشيدا دحديدا أيا لغو جمعنايا 40 يوما أفرتا مع الموت نطفة إساو عروف وبيه آبو يهوية وهلكا جوغا أفرتا مع الموت ثم دبدين يكون وحو أهانيا علقة عد حنجير أيو نقوني علقة ومضقة عد هربة ودربية الرحم ككل جاي مضغة علقة حنجر بو نقنيا مثل ذلك انت سوكل افرتن لباد هدنا وحو نقنيا واسبدليا جدود با سو غليا وحو نقنيا حنجر غعنتا ku dhagdhagaysa waa sookal waa 8 maalmood Soomaa thumma dabadeedna yakunu wuxuu ahaanaya nudfadii ama insaankii mudqatan adhiri buu noqonaya ad qadr ma yumdaqhu وحل علالين كرو نقون كرا قبل يربو نقونيا مثل ذلك انت سوكل أفرت صدح ومن أفرتنا هذا ما يقوه بقول إيه لباتن مع الموت بقول لا تنكا مركو حلو ثم دبدادنا يرسل وحا الله صدريا إليه إنسان كان بقول إيه لباتن مع الموت جرى الملك ملك بالله صدريا فينفخ وأفوف يا ملك فيه إنسان كان نحديثا الروح روح بكو أفوفيا روحdu siday tahay ma naqaan jismi ma leedahay noocay tahay ma naqaan laakiin xadiis waxa soo qaadna qofka marka ruuxda laga qaado malaa'iktu inay kafan gelinaysa ruuxa wax kafan la gelinayana waa dareemi kartiin sidoo yahay Allahu a'lam ma sheekar wayasalunaka 'ani ruux qul ruuhu min amri rabbi wama utiitu min al-'ilmi illa qalila fayanfukhu wa afufa ya fihi insaanka dhaxdiisa malagi الروح دي بو كافوفيا xagee laga keenay ruuxda samada laga keenay insaanka intiisa kalena waa biyo isku darsamay oo heerarka maray ويؤمر waxa la amraya malagi بأربع كلمات أفر ayaa la amraya kabadalo بكتب رزقه inuu qoro ayaa la amraya ninkaas inta garaam cuni lahaa ama inta kiilo qorba la leeyahay inkastoo idinka kamida uu cuni lahaa waa qorayhi meelay ku qorayhi wa ajalihi ajashiisa inuu qoro ayaa la amraya madashiisa intuu gaari doono umrigiisa wa amalihi amalkiisa ayaa la qoraya amalka uu sameeynayo khayr ya sharba waa la qoraya kiraaman kaatibiina ya'lamuna ma taf'aluna وشقي أهو شقي إنه يهي أيا لقرية أهل النار إنه يهينا والقري أو سعيد مذنبان إنه يهينا والقري إنه جنة قلي إنه نار قلي سوى علوشه يسكجر القري فوالله بويري عبد الله بن مسعود بادارني فوالله الله أيام كدارت الذي أليه بان كدارت ما النبي دارني فوالله الله أيام كدارت الذي أليه بان كدارتي لا إله إلا حق له عابد أوسا جرين إله سو غيره غير كيس إن أحدكم أحدكين لا يعمل وحو عمل سمينا يا أحدكين بعمل أهل الجنة جنة أهل كذا عمل كذب سمينا يا وفيما يبدو للناس ووحدتك أم غضوة حديثك لا فسرس لين إسك عبادة السنة يتوصل إنه إله النار إسك قلنا يا أقاضنين ninka marka hore ayuu wuxuu yahay khabiithu niyya in ahadakum ahadkin la ya'malu wuxuu amal sameeynaya bi amali ahli aljanna jannada ehelkeeda amalkeedii uu sameeynaya waa tawxiid sanaya waa tukanaya sakadii uu bixinaya waa soomaya waa xajinaya ihsaan buu sameeynaya fiima yabdu linnas dadka waxa u muuqdo anagu qalbigiisa ma ognahay waa ma fiima yabdu linnas hadis kala fasiray حتى ما يكون إلى أسنأهان بينه قفك دحديسة وبينها نارتي إلا ذراع حتى ما يكون أسنهان
baynahu isaga dhaxdiisa iyo wa baynaha jannadii ilaa diraacun suxul baa u dhaxeeya bimacnaa qadar yar marka cumrigiisa ka dhiman tahay diraac ilaa isagii iyo jannadii ay u dhaxayso diraac xusul oo kale u dhaxeeya fayasbiqu waxaa dhaqaya oo ka qaalib noqonaya calayhi dushiisa alkitaabu kitaabkii camalku ugu qornaa ilaan markuu caloosha ku jirayso wax kasta lama qoran shaqiyun aw saciidun soo maahay fayacmalu wuxuu camal samaynayaa dabayaaqadii suxulkaas cumrigiisa uu ka dhibnaa bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkoogu samaynayaa fayadkhulu markaasuu wuxuu gelayaa naartii saasuu khaatimadiisu ku dhammaanaysaa ahlu naar buu noqonaya walciyaadu biاllaahi waina axadakum axadkiin layacmalu wuxuu camal samaynayaa bicamali ahli الnaari ahlu naarka camalkooda ayuu samaynayaa fii ma yabdu linnaasi wixii dadka u muuqdo xataa maa yakuunu ilaa uusan ahaan baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa naartii ilaa diraacun suxul maaha wax kale aysan u dhaxayn fayasbiqu waxaa hormaraya ama dhaqaya calayhi dushiisa alkitaabu kitaabkii qadarku ugu qornaa fayacmalu wuxuu camal samaynayaa bicamali ahli اljannati ahli jannada camalkeedii buu samaynayaa fayadkhulu wuxuu gelayaa jannadii rawaahu bukhaari wa muslim baa wari marka xadiiskani waa xadiis aad iyo aad u cajiib badan w insaanka hooyadiisa calooshiisa lagu jamcinaya dowrka hadda waagii hore ibigan hadda waxyaalaha la ogaaday oo ibiga ah ma jirin laakiin ibiga hadda qofka waxaa dhici karta in la ogaado caloosha hooyadiis wiil baa ku jira ama gabadh waxaa sheegay baa la leeyahay aaladii kombyuutarkaa sheegay 120 ka hor hadday sheegaan ha la yimaadaani riwaayadaha kale waxaa ku jira adakarun am unhaa ma wiil baa mise gabadh ayuu leeyahay malagii soo ma markaasaa waxaa leeyahay suuraddii waxaa loo suuraynayaa gabadhnimada farji baa laga jeexi ama waxaa waaye dakarkiisaa loo nidaamin waaye markaa 120 ka hor bal kombyuutarka tagu ha kuu soo sheego wuxuu sheegi kara ma laha wiilii gabadh wuxuu sheegi kara ma laha mar haddii malag loo diray waxay leeyihin culimmadu qaybkii waa ka baxayba waxa ilaahay uu la gaar noqday wamaa tadri nafsun maada tagsibu qada wamaa tadri nafsun biأyi ardin tamuut aayadda awalkeedii in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu اlgayth wamaa tadri nafsun wamaa fi اlarxaam aan ujeeda raximada waxa ku dhex jira oo ilmogaleennada intaan maaragtay aan la suurayn ka hor ma ogaan karaan laakiin waa taas way marka intaa xaaladaas suurtagal wa marka malaga loo soo diro ayaa malaga afarta kelimo uu amraya muddada ajashiisa intaasay noqonaysaa shaqi hadduu yahay ahlu naar hadduu yahay marka xadiiska nabigu uu leeyahay ina axadakum la yacmalu bicamali ahli اljanna xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ila diraac ajashiisu ilaa ay ka taab noqoto marka la gaadho camalkiisii saalixa ahaa qofku waa ka tegaya laakiin xadiis kale wuxuu leeyahay ina axadakum la yacmalu bicamali ahli اljanna ayuu samaynaya fii ma yabdu linnaas sida dadka u muuqata wa huwa min ahli الnaar isaguna ahlu naar isaguna min ahli الnaar naarta ehelkeeda ayuu ka mid yahay isaguna waa ahlu naar maadaama ahlu naar uu yahay ayaa dadka waxaa u muuqda inuu ahlu janno yahay arrinkaas saxaabada waa shaki baa ka galay kayfa yacmalu bicamali ahli janna xataa maa yabqa baynahu wa baynahu ila diraac calaa ayi xaal camalu ahli janna waa sida dadka u muuqata ninka markuu hore ayuu xumaa kadibna waxaa hormaraya camalkiisii arrintaasi saxaabada laftigooda baraatig ahaan bay u arkeen baraatig ahaan ayay u arkeen waxaa dhacday qiso nin saxaabadii ka mid ahaa fii qaswatin min qasawaatihi ninkaas waxaa la yidhi laa yadacu shaadatan walaa faadatan lilcaduwi ilaa qadaa calayha koox gaar u baxday oo cadow ka mida nin wuxuu ahaa geesiya waa dhammayn jiray nag 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 fatacajaba annaasu minhu dadku aad bay ula yaabaan ninkan dagaalkiisa iyo dhiiranaantiisa saxaabadii way mujaahid weyn oo khatara wey waxay yidhaahdeen haada aladii kasaba almacraka ninkan baa macrakadiiba qabsaday maanta hebel unbaa hawshoo dhanba fuliyeyba
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار نكاسو أهل النار بو النبي ونكاسا أدقالما وجهاد ساء وجر وقال ساء أدمي أهل النار مدح الصحابة وينال فعظم ذلك على الصحابة كيف يكون هذا الرجل من أهل النار صحابة أدبئ وينال لكن رجع عقل بدن بيها سيدنا كلامها هاي oo waxa laga yaabaa annaga haduu qof ku sheego wuxuu xaqiiqo u og yahay wax kaaga taabeen la wata inaad tiraad isaga tagto saxaabadu maxay sameeyeen nin baa wuxuu yiri la alzamanna wallahi ana ninkan laazimaya waa dabagalaya nabiga warkiisu been maaha ninka wuxuu naarta ku galayo waaba amal ahlu jannu sameeyay inuu naar galo ana dabagalayo oo taabicu waa raacaya waa dabagal sidoo ula socda meeshu wax kullaa la socda ninkii فأصيب هذا الرجل ضاوع ضخر باقاري ضاوع باقاري بسهم من العدو ننكي وحاقاري فالأربع كنا عضي وعدو جاء فجزع ننكي وأرقاحي وصل سيفه سيفتي سوسيبتي والعياذ بالله ثم وضع ذبابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض wuxuu sameeyay saftiis caaradeeda intuu soo qaaday labada naas dhaxdeedu saaray markaas isku siday markaas dhabarka ka baxay oo isdilaysa markii dhaawac yar baa gaar dhaawac uu adkaysan ثم اتكأ عليه سيفتي بوسا ugu tiirsaday xoogiisu saaray hatta kharaja min dhahri ila safti dhabarka ay ka baxay faqatala nafsahu wa isdilay ninkii ordaya nabiga uu فجاء الرجل إلى النبي وأخبر أشهد أنك رسول الله وحانقر يا إلهي رسولك سينات قال بما ونيه هرئي مقر سنين محاب قريسة قال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا منك آتي لأهل النار ساسي سمي رسولك إلهي باوع باقاري سيفتي سوقاضي لبدا الناس نحن صار وكتاك صدي وإسجلي مركا لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس واسida dadka u muuqata laakiin ninkan waxa weeye khubsi xun baa niyada uga jira marka nabigu wuxuu yiri inna ahadakum la ya'malu bi'amal ahli aljannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli an-nar saadarteed ma waxa kale qasadka tusaalaka loo soo qaata usayr min bani abd al-ashhal lin oran jiro ansaari aha dacwada nabiga nin la dagaalami jiray buu ahaa cadow u ahaa ولما خرج الناس إلى قسوة أحد ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج للجهاد وقتل شهيدا لكن وحد عضي أصير من بن عبد الأشهل بوها دعوة النبي يقول لدى قال لم يجري وحد عضي ذاتك دقال أحد مركي أبحر أي إله قلبي إسلامي مكسو طور سوسا عدل أوين بصوبحا ألقى الله في قلبه الإيمان والرمي وصوبحا جهادك دقالك الآن لقدري شهاد وقاتل قتل شهيدا فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل dadkii oo meydkooda baaranay saxaabada waxa arkay ninkan meesha ku dhex jira ninkana gaalnimo lagu ogaa usayr faqaalu hayra man alladhi jaa bika ya fulan daawacna waha nafti ugu dambaysa ku jira qaala wuxuu yiri qaala waxay ajita hadaban ala qawmika am ragbatan fil islam warmaxad meesha u timid qoomkaaga quraysh difaac yaani tolka aad ka dhalatina difaacaysa mise islaamnimay ka ahayd waxaad meeshan u timid oo ugu dhimatay قال وحير بل رغبة في الإسلام كذب ولا راديي وكذل بضي وحيري رسولك إلهي يقول سلام يقارسية كوح مالنا يركها شيء أهيد فصار هذا خاتمه أن قتل شهيدا مع أنه كان منابدا للدعوة إن كان شهاده كلمت ونكي النبي عليه الصلاة والسلام أيمد استغوا متقانا قال رسولك إلهي قال كان قليا ما إسلام من سواد قال لما أسلم بالي فقاتل فقتل وحو النبي عمل عملا قليلا وأجير كثيرا ما تكن ما سومين ما حج سمرك من جنة قال بركة إلهي خاتمة هل لو يديستو بركة أساليب حديثك أنت صان السياسة قابلنا شرحي سنة ومسي بنا بحين درس وما أنت نوغيك هذا وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى